inay ku qaadato lacag argagixiso oo tiraahdo argagixisa joogto weligeed waa lagu wad inta ay haysatayna waxay ku haysatay inay tiraahdo gobolka argagixisa joogta lacagta argagixisadana ku qaadato oo dawladaha wax taageera ay boolisiyadooda kaga qaataan lacag kaga qaataan inay yiraahdaan argagixisa joogto gobolka intooduna nabad ahaato annagana markaanu ka hadalno nidhaahno maxamed goboladiino kale u noqon weyno nabad u noqon weyn waxaana loo gud su'aalaa deedinku isbaar waxaanu dib ka ogaanay intii waliba hadeer aan wax baadhno arrimaha dhex galay in nala ku qaato lacagta argagixisada in annaga nala ku qaato oo la yiraahdo gobolka argagixisa joogto horeyna nala oran jiray hadeerna wata afka ay kaga hadlayaan waxay kaloo ku dadaalayeen hay'adaha samafalku inuusan gobolku iman oo mar walba la yiraahdo hay'ad kasta gobolku nabad ma qof kasta oo nabad ka hadla waana baaraysaan qofkii waa arki doontaan dadkii la laayay qofkii nabad ka hadlana waa la dili marka arrintan tadliis baa ku jira xaqiiqadan maanta sheegay waxa weeye annaga taa hadeer la leeyahay baa awalna la ka gudbin jiray iyadoo sir ah oo dadka hoos loogu sheegayo la leeyahay waa gobol argagixiso joogto iyadaana wax ku disha lacagta argagixisadana gobolka lagu qaadan jiray dadweynahana ma ha ogaadin maanta hore uma aan sheegin anigu ha ogaadeen caalamku dhanna waa ogeysiinayna insha Allah ta'ala maantana argagixiso dambe nala ku qaadan maayo hadii lahayd ma soo dhamaatay arrintaas waxaan diyaar u nahay inaan insha Allah ta'ala Soomaaliland iska celino aanan dulmid waa musabbixi maamulkiisa shacabka Soomaaliland kale dhibaato uma hayno waa walaalaha isku nool baanu nahay laakiin ciddii Soomaaliland noo soo raacda musabbixi maamulkiisa gacan baa sida ay noo garaacayaan oo waxaan noogu garaaceen oo guryaha iyagu ololayaan oo guryihii qaar maalin walba guryo u gubanayaan baanu annaguna u diyaar garownay shacabka waxa ku garaacaysan inaad maamulataan ha ka sugina way idin dhamaatay insha Allah intaasaan ku soo ururinayaa marka arrintan cidda wax dishada way ogaayeen iyaga nooga waroona waana ciday gacan saar la lahaayeen bay ahayn haddayna iyagu fulinayna ciday iyagu soo dirsadeen gacan saar ay leeyihiin ay og yihiin gobolka inay wax ku dilaan bay ahayn oo xaqiiqaduna waa sida hadda waa arrimahan dib ka ogaanay markii hadeer ay Soomaaliland naga dhex baxday magaalada dhexdeeda nooga baxday waa ka baxay Sheikh Cabdinaasir maanta kale ay ku beegnay maalintii uu dhintay Sheikh Cabdinaasir maanta kale ay ku beegnay Sheikh Cabdinaasir maalintaas wuxuu ka hadlay idinka wax dila oo dadka idinka laayay buu yiri sheekh marka arrinta Sheikh Cabdinaasirna ay aaminsan yihiin aanu ognahay in sirdoonka caalamka qaarkood ay ka hadleen iyagu inay arrinta fulitaankeeda qayb ka ahaayeen baan insha Allah ta'ala taasaan anaguna aaminsanahay in iyagu hawsha fuliyeen